dhalinyarada guusha soo raacay degmada Buurtile ayaa maalmihii ugu dambeeyay olole nadaafadeed iyo qurxin iskugu jirto dhireenta magaalada ka waday magaalada Buurtile ayaa saaka kulan la qaatay maamulka degmada Ulimowdiin ganacsato iyo wasiir-dowlaha wasaaradda duulista hawada Puntland inta kulankan uu socday waxaa hadallada u badnaayeen dhiirigelinta iyo ammaan loo jeedinayo dhalinyarada isxaqaamayaasha Buurtile ee guusha soo raac ugu horeyntii gudoomiyaha guusha soo raacay degmada Buurtile Xaafi Cabdirasaaq Axmed ayaa sheegay inay isku xilqaameen inay degmadooda wax badan ka bedelaan dhalinyarada guusha soo raacay degmada Buurtile waxay isu xilqaameen inay degmadooda wax ka bedelaan ama ay taageeraan wax allaala wixii horumar ah ee ka socda ugu horeeyaan maamulka degmada iyo golaha deegaanka horumarka ay wadaan bahda waxbarashada horumarka ka socda caafimaadka deegaanka wax allaala wixii ay u arkeen inay horumar ku jiro bay rabaan inay taageeraan oo ay ku taageeraan sida nidaamku yahay oo ah gacan siin dowladda hoose iyo maamulka degmadu runtii kuma filla hadday nadaafad tahay iyo hadday amni tahay iyo hadday horumar tahay haddaan lala shaqayn dhanka kale culimada dhaqaatiirta iyo xogayaha dowladda hoose ee degmada Buurtile ayaa iyaguna hadallo kooban oo soo dhaweyn ah ka jeediyay madasha waxaan soo dhaweynayaa waan aad iyo aad u hambalyeeynaya ururka dhalinyarada oo shaqaynayay oo shaqo aad iyo aad muhiim u qabtay oo degmadeena heer fiican soo gaarsiiyay maxaa yeelay waynu ogeyn ayadoo wax abaabul oo la taaban karo uusan jirin iyo wax fiican oo haatan la isla ogyahay ayay waxay u kaceen arrintii in la kaalmeeyo dadkii walaaleenaha dhibaatadii kusoo gaartay soobe waxaan leenahay aad baa u mahadsantihiin boqolkiiba boqol baa mahadsantihiin waan idin taageersanahay waa idin la shaqaynaynaa inkastoo aan jeclaan lahaa inaan ahaado qofka ugu horeeya oo asagu qashin meel ka qaada ummad kasta oo isbedesha oo aad aragtaan waxaa dhab ah waxaa bedela oo u kaca waa dhalinyaradeeda iftiin baa maanta inoo baxay dhalinyarada reer Buurtile ilaahay khayr ha siiyo waxaad moodaa inay u istaageen dantii dalkooda iyo dadkooda sidoo kale gudoomiyaha degmada Buurtile Maxamuud Axmed Buurdubi ayaa isna dhankiisa sheegay inay dadaal dheer u galeen nadaafadda degmada inta uu jiray maamulkiisa degmada inaan dadaal dheer u galnay inaanu ka qaybinaano nadiifino degmada baraagihii magaalada ku yaallay gudahoodii ilaa 71 baraagood baanu aasnay waxaanu la dirinaynaa waxay ahayd nadaafad darrad ka jidha xilligaas waxaad ka warhaysaan inaanu samaynay laba god oo waaweyn god hore u jiro aan sii ballaarinay waanu ka dhignay 150 ah iyo mid kaleeto waanu jirino 9 kilomitir magaalada u jiro 100 ah hoosna 2 kilomitir ah waxaan u diyaarinaynay inaan qorshe u samayno nadaafadda aanu ka qaadno magaaladeena si halkaas loogu guuro ugu dambeyntii wasiir-dowlaha wasaaradda duulista hawada Puntland mudane Cabdiqani Geelle ayaa isna dhankiisa ka codsaday inuu ka mid noqdo dhalinyarada guusha soo raacay degmada Buurtile sidoo kalena ballan qaaday inuu ku deeqayo lacag dhan 10 milyan oo shilin Soomaali ah halka degmaduna ay ballan qaaday 20 milyan oo shilin Soomaali ah inaan anigu aan ka codsado inaan ku biiro aan ka mid noqdo inaad iga aqbashaan wax badan waa intay doonaa insha Allah inta kadib degmadeena horumarkeedu wuxuu ku xiran yahay dadkeeda oo iskaashada ilaahayna aynu tala saarno intaas oo bakariye u baahan tahay hadaynu Allaahayna tala saarno isna kaashano waa horumarayna 20 milyan bay degmadu ballan qaaday waxaan islahaa haddii degmo weeyo hadday 20 tiraahdo tolo maxaa oran kartaa 1 milyan anigu 10 milyan baan rabaa inaan haddii Alla inoogu soo wixii waan shaqaynaynaa insha Allah waxaan jeclahay waxa aad u baahan tihiin oo dhinaca dawladda ah idinkoo soo maraya nidaamka iyo maamulka inaad soo gudbisaan oo baahidina soo gudbisaan waxbaan kala qabanayna Mawlid Maxamed Kooshin warbaahinta SBC degmada Buurtile.